Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cuntada ilmaha 4 bil ilaa iyo sanad ay ka gaarayaan jadwalkooda cuntada ayaan muuqaalkan kaga hadli doonaa. Soo dhawaada. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa hore noola joogto familka ka mid tahayna like noo saar asxaabtaadan u sii share gareysii hooyooyin badan ay kaga faa'iideystaan. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cuntada ilmaha 4 sano ilaa iyo sanadka jiro ayaan kaga hadli doonaa. Maxaa la siiyaa maxaa la siinin iyo cunuga cuntadiisa si loo karnaa. Horta inta badan hooyooyinka Soomaalida maasha Allah way dadaalaan oo cunuga markuu 4 bil soo gaaro waxay isku dayaan in cunuga wax siiyaan laakiin qaabkii xooga waa qaab oo laga qurux badan yahay oo cunuga in suugada cida markay karsanayso kala xabad baradho ee loogu daro ama jab looga soo bixiyo kale suugo oo saliid lagu daro cusbo lagu daro xawaajiye laga yaabo in lagu daro hooyada ugu fiican waxa laga yaabaa inta xawaajiyada ku jiran ay uga bixiso laakiin cunto dad waaweyn loo karinayo saliid loo cusbo leh cunug yar oo 4 bil jiro oo waliba sanadka yar 4 bil xataa iska diinta cunug sanadka yar yahay ma xamili kariyo marka qaab loo kariyo leedahay cuntooyinkooda insha Allah muuqaalka taas ayaan kaga hadli doonaa soo dhawaada. Ilmaha horta cuntooyinkooda saddex ayaa loo kala qaadaa ilmaha markii waa weyn yihiin oo kale oo cunuga markuu 6 bil kor u dhaafo kale qayb afraad soo gasho laakiin hadda markii cunuga uu ka yar yahay oo kale 6 bil oo 4 bil ay dhacdaan cuntada loogu bilaabo horta cunuga kooba inuu qoorta cishan kara oo yaqaan inuu qoorta cishto cuntada marka cunaysid inuu cunuga hami u leeyahay inuu cuntada cuno cunuga aan qoorta cishan karin waxba lama siin karo waadii cunug laakiin qoortiisa uu cishan kara aragtid oo markaasaan u fadhiisi sidoo kale qabatid oo qoortiisa aysan waxba aysan nuxnuxsanaynin oo taagan tahay markaas cunuga waa u bilaabi kartaa 4 bil okay marka cunuga quraacdo kale waxa wanaagsan in karbohaydrayt ay ugu dhigtid oo kale qaadadana ay ugu dhigtid oo kale waxyaalaha oo borotiinadii waxaas leh cashadana khudaar iyo faakiha bis ay ugu dhigtid marka ilmaha markaas quraacda u sameynaysid sidoo kale waxa wanaagsan cunuga in cuntadiisa gooni loogu kariyo dadka waaweyn aan loogu dhex karin maadaama dadka waaweyn saliid iyo cusbo iyo waxyaalaha carcarfin ah ee cuntooyinkooda ay ku jirto waxyaalo la shiilayna dadka badan ay isticmaalaan marka cunuga cuntadiisa wax la shiilay ama wax saliid loo dhaweeyo ama cusbo loo dhaweeyo inaysan dhaqan ayaa wanaagsan caadi ahaan cunuga marka cunto u bilaabaysid marka ugu horeysan waxa wanaagsan in hal qayb ugu bilaawdid kadibna cunuga markuu halka qayb 3 maalin siisid oo la qabsado qaybta labaad haddana ugu dirtid oo kale oo laba xabo marka ugu horeysa cunuga aadan ugu wada bilaabin marka cunuga marka cunto u bilaabaysid oo kale inaad maalintii koomas ugu bilaawdo fiican cunuga inuu kula qabsado marka aragtidna aad isugu dartid shoofaan iyo moos inaad isugu dartid oo kale ama inaad isugu dartid oo kale bariis iyo karooto aad isugu dartid oo kale ama bariis iyo bocor aad isugu dartid oo kale marka bariiska ama shoofaanta oo kale marka karinaysid biyaha ku karinay biyo dabka la saare shoofaan waxa la lahaa geedkan qofkan aqoon gasacmanka mashaaridan yar yarta ah oo gasacmanka ku jirto oo diyaarsan ala lahaa marka mashaaridaas oo kale cunuga inaad dabka u saartid biyo la saartid markay bislaato oo kale la waxay romoos ay antaale galisid qalaadada ay galisid oo kale ashidid hadii bariis iyo karooto asiinaysid oo kale ayadana in bariiska biyo lagu kariyo oo cusbo iyo saliid aan loo dhaweynin asagi karootadana dab yariis oo daciif lagu kariyo si nafaqada aysan ugu dhiman hadhowti markay bislaadaan qalaadada inta galisid ashidid oo kale cunuga saas oo ku cabo hadii kalena oo cunugaada oo kale macaan u naqanay hadii cunuga uu jecleen oo kale waxaas shoofaanta inta biyo ku karisada caanaha caadiga hadii caana asiisid oo kale caanihiisa ugu dari kartaa marka saas qurux badan oo cunuga in cuntadiisa iyo tan dadka waaweyn aan la isku darin ee laba ay kala ahaadaan hadii marka jadwalka qaadada oo kale cunuga oo kale waxa wanaagsan maadaama saaka karbohaydrayt asiis inaan waxba karbohaydrayt kale aadan ku celin oo kale oo asiisid oo kale ukunta jaalaheeda oo kale inaa ukunta inta soo karsid jaalaheeda asiisid inaan baradho biyo lagu kariyo qaadada waxa wanaagsan in ukun inta karisid jaaladeeda aad ka siisid cunuga ama baradho inta biyo ku kariso kale asaas ku siisaa ama beerka doorada kale u helaysid ama beerka shimbiraha kale asiisa okay way ayadan cashada marka maadaama cunug yar yahay uu u baahan yahay kale casho wax adag noosan qaadan karin waxa wanaagsan in qudaar looga dhigo sida tufaax la kariyo kale ama bocor guduud aad kariso kale ama wax jilcan oo qudaar ah oo cunuga u karaysa inaad saas casho uga dhigta ayaa qurux badan marka cunuga marka uu 6 bil uu kor u dhaafo oo intaas waxa soo bilowda markuu 4 bil jiray cunuga markuu bisha 6aad dhameysto cunuga markaas waxa ugu darin kartaa waxyaalaha caanaha laga soo saaro sida yogurtka
waxaa lagu dari karaa yogurtka ama maxaa la dhahaa waxaa ugu dari kartaa subag oo kale, markaa subaga xoolaha oo kale oo bilaabi kartaa. Marka haddii cunuga maalmaha ugu horey uu diido kale inuu wax cuno kale oo maxaa la dhahaa wixii maadaama ay ku cusub yihiin asagana yar uu diidan yahay oo kale waxaa samayn kartaa in maxaa la dhahaa maanta markaa siis uu ka diido kale iska dhaaftaa beri aad ku celisaa. Hadduu diido iska diisaa maalinta kale ku celisaa waxba aadan khasbin. Marka haddii aad ku celisaa maalinta dambe waxay u badan tahay inuu ka qaato. Cunuga haddii mar uu waxa uu ka jeestana waxaa qurux badan in aan lagu qasbin cunuga la'aan haddii aad ku qasabtid waxaa laga yaabaa in uu wixii uu naco ayada dhanba. Marka wixii haddii uu mar inuu kasii jeesto aragtid maxaa la dhahaa ha ku qasbin, laakiin markii uu waxan uusan aqoon uu rabo in aragtid inaad bartid maanta siini hadduu diido ma qasbaysid waa dhaafay beri haddana u sameyn haddana waa siini haddii uu diido ma qasbaysid. Marka markuu shil dhadhamiyo oo maanta dhadhamiyo uu beri dhadhamiyo khasab maalinta afraad uu ka qaadanaa. Laakiin markii cunugu rag inaad cuntada ku sii qasbin si uu u nicin inuu cunto aasiisan in uusan kaaga diidin iyo maxaa la dhahaa cuntadii in uu rabin haddii aragtid inaadan ku qasbin. Markuu barta kadib haddii aragtid inaad markuu ka barta kadib waa haddii aad isku daydo inaad siisid aragtid inuusan rabin uusan qaadanaynin fadlan ha qasbin isaga dhaaf kuwa kale sii la'aan haddii aad ku qasabtid wuxuu arki doonaa in hadda kadib markii aad cunto u keento uu diido uu maxaa la dhahaa diiditaankaas ee dabeecad u noqotay u badanta. Marka intaas aan kaga bixin haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqataa subscribe noo saar kambalka furo hadda hore noo joogtaan like noo saar asxaabtaadana soo share gareeso dhawaada.